عبد الرزاق هوتل بيس كما فوق حالنا كما فوق حالنا ودقرنيسا واحد دقن ciidanka Amisom ayaa degan marka waa meesha yani aad ka loo ilaaliyo weeyaan hadii macna yani Amisom rideedii yani la qarxinayo hadii yani magaalada Muqdisho amnigeedu amaanka ka baxayo arintani waxay wajhi ka bax ku tahay oo runtii yani arin aad looga yeeqsay ku tahay ururka midnimada Afrika ciidanka meesha ka joogo oo la oran karayo 9 sano ka bacdi waxay hanan la yihiin oo macna ay suglaayihiin amaankii macna wadanka ay suglaayihiin wali amaankii caasimadda ay suglaayihiin ayadoo ogna maanta caasimadda inay doorasho ka socoto ayadoo maanta ogna caasimadda bacrin ay ka socoto in la dhisay haykalka dulmaanta in la dhisay loo yahay ayadoo maanta yani baarlamaanka hadda soo doortay ayadoo baarlamaanka macna doonayo inuu yani doorto madaxweynihii iyo gudoomiyaha baarlamaanka u doonto loogu talagalay macallin laakiin ciidankii dawladana aaway sirdoon baa jira boolis baa jira militarigii baa jooga iyaga laftirkoodu miyaysan qayb ku lahayn in dhibaatadan dhacaysa walaal عبد الرزاق ciidanka Soomaalida ciidan tag daran weeyaan waa ciidan loo diiday in la qalabeeyo waa ciidan loo diiday in la tababaro waa ciidan loo diiday in la tayeeyo waa ciidan loo diiday inay ina hantaan yani amniga wadankooda loo diiday weeyaan ciidanka Afrikaanka ee meesha jooga ee meesha lagu musarrufaya inay macnaha u diidaan ciidanka Soomaaliyeed taas ayaan darada haystay kamid tahay mid labaad waxa Cabdi Rasaaq ciidanka waxa ma runtii inay ka dhaxaynaan wada shaqeyn maartay maxaa yeelay sirta iyo xogta waa la soo gudbiyaa hadii sirta iyo xogta la soo gudbinaysan waa iswadaarsanaynin waa laga dhex faa'iideysanaya waxa moodaa runtii ururkan yani ciidamada Afrikaanka meesha joogo iyo ciidankan Soomaalida inay wada shaqeyn ka dhaxaynin waxa arkaysa hatta ciidanka amniga oo wadanka yani booliiskii iyo militarigii iyo ciidankii nabad sugidda inay wada shaqeyn ka dhaxaynaya dareemaysa maartay haday wada shaqeeyaan kulligood way soo kalaan su'aasha ugu dambeeyaan ku weydiiyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka waa lagu dhawaaqo 11 bishay dhacaysa baa la yiri muqdishona waxana ka dhacaya oo sanadkii cusba 2 maalmood iyadoo laga joogo ayay waxan dhaceen marka doorashadii oo hadda la mudeeyay iyo amni darradan si ziyaadaysa bal ka waran iyada waxa way walaal runtii doorashadan waxay sanadkan dhamaad imanka dhamaad in la qabtay ahayd dhowr jir baa dib loo dhigay si kastaba arinta ahaata ama xagga dhaqaalaha ahaata ama xagga farsamaha ahaata ama xagga macnaha yani si kastaba ha u dhacdo ama xagga musuqmaasuqa ahaata laakiin imanka waxa weeyaan yani doorashadan imanka hadda dhacaysa ee baarlamaanka yani runtii ku dooranaya madaxweynaha uu ku dooranaya yani ra'iisul baarlamaanka dooranaya iyo ninka ku-xigeenkiisa uu dooranaya haddii amrigan aan wax laga qabanin haddii dalkan aan la dejinin saamayn bay ku yeelan kartaa xataa doorashada qodeeda maartay maxaa yeelay ninkii soo bixi ayaa dhici karta in loo hanjabo ninkii soo bixi dhici karta in maartay loo agajugleeyo oo ay dhici karta macnaha inuu ku soo baxo doorashada qof aan ehel buu ahayn maartay ehel baan u ahayn maartay maxaa yeelay qofkii meesha aadi lahaa haddii loo agajugleeyo oo macnaha yani runtii maartay yani maartay la cabsi geliyo Cabdi Rasaaq oo inta waxaan ku raacin lahaa waxaad moodaa runtii yani dadka maanta meesha doorashada ay ka dhacaysa amnigeeda aan la sugin baarlamaanka hore waa ka wen yahay waa 329 baarlamaan xubin weeyaan oo ba aqalka sare iyo aqalka hoose ah dadka macnaha wax dooranaya haddaan ammaankeeda la sugi karaynin meesha doorashada ka dhacaysa ammaankeeda aan la sugi karaynin qofka macnaha gurigiisa intuu ka soo baxa uusan yani si xor baarlamaanka u geli karaynin waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota waxay fariin cad u diraysaa beesha caalamku in qofka soo baxayo uu yahay qof macnaha yani ururada maylkaada ay wataan ayaa dhici karta ayadoo ku soo baxa dhici karaysa maxaa yeelay waxa iminka soo dhaca jugleen weeyaan waxa iminka socdo waxa weeyaan waa doorashadii loo agajuglenayo iyo fariin dawladda loo dirayo caalamka loo dirayo inay macnaha yani ganacsigu sidii caadi ah inuu caadi ahayn ganacsigu inuu caadi ahayn oo macnaha waxa weeye runtii agajugleynta iyo maartay agajugleen farbadan inay socoto laga dareemi karaya ma Cabdi Rasaaq marka amniga iyo ciidanka maartay qaranka waxa saaran waajib muqaddas ayaa saaran inay ilaaliyaan sugaan amniga caasimadda ilaaliyaan sugaan doorashada ay sugaan si marka doorashada ugu soo baxdo yani doorasho xalaal noqoto dad saxna marka wadanka macnaha samata bixin kara ay meesha ugu soo baxaan Cabdi Rasaaq